madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa safarkiisii ugu horeeyay ugu ambabaxay dalka Itoobiya oo sida la sheegay hore u diiday in madaxweyne Muuse uu halka ku tago maamuus heer madaxweyne kadib isbedeladii siyaasadeed ee ka dhacay dalka Itoobiya. warar hoose oo ay warbaahinta u dusiyeen ila wareedyo ka agdhow Muuse Biixi ayaa sheegaya in madaxweynuhu halka kula kulmi doono madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalmihii dambe socdaal ku marayay qaar ka mid ah dalalka ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya oo uu ku jiro dalka Itoobiya oo aanu wali gaarin laakiin uu ku dambeyn doono sida ay wararku tibaaxayaan. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa lagu tilmaamay madaxweynihii ugu adadka dhinaca qadiyadda Soomaaliya marka la eego hadallada aan loo meeldayn ee uu ku qaado madaxda iyo dalka Soomaaliya. madaxweyne Muuse ayaa dhowr jeer meel fagaaraha ka sheegay in madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Khayre ay khatar ku yihiin jiritaanka Soomaaliland. caqliga toosan Soomaalidu maanta meel jirto waxay baantay inay qoriga inta talaan ka dhigto. laakiin waxaan arkayaa dawladda maanta xamar ka dhisan ee baydhabo wareegaysa dadka kulaynaysa ee Kismaayo u samaysanaysa ee Puntland dibadda ay kaga baxsatay ee Soomaaliland dagaalka ku haysa ee iyada uu ilaalinaya ciidamada qaranimada ay ilaalinayaan ee qaranimada midowga dagaalamaysa garan mayno fidmadeedu inta ay Soomaali ka mid noqoto laakiin Ilaahay waxa lagu rajaynayaa in Ilaahay fidmadeedu ka nabadgeliyo inaguna uu diyaar garoobayna waxa ay deegaantiin oo yimaadaan dhinac walba inuu iska daafacdo. madaxda Soomaaliland ayaa waligoodba lagu tuhunsanaa inay shacabka ka iibiyaan dhaandabagaale aan ku qotomin xaqiiqda dhabta ah ee halka ay ka taagan yihiin qadiyadda Soomaali weyn. haddii uu Muuse Biixi la kulmo madaxweyne Farmaajo oo in badan saxaafadda ka weeray waxaa cadaan doonta wareerka ay shacabka seeflaboodka ah ee Soomaaliland ku ridayaan madaxda leh ujeedooyinka qarsoon ee ku wajahan Soomaaliya. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo ka mid ahaa wafdiga madaxweyne Muuse Biixi u raacay Itoobiya waxa uu diiday inay la kulmayaan cid aan ka ahayn madaxda Itoobiya. haddii hadalkaas rumaba waxa soo ifbaxaya in Itoobiya ay dib ugu laabatay habdhaqankeedii dhinacyada siyaasadda Soomaaliya oo uu meesha ka baxay heshiis la xaqiijiyay inay hore u wada galeen madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo ku aadanaa in macaamilka siyaasadda arrimaha dibadda looga dambeeyo dawladda federaalka Soomaaliya. 2 sano oo xilka hayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa joogsaday wada hadallo goos ah oo yeelan jireen madaxda Soomaaliland iyo Soomaaliya. hadallo deelqaafa oo kaga yimid dhinaca Muuse Biixina waligii kama jawaabin. marar yar oo soo hadal qaaday Soomaalilandna wuxuu muujiyay baahida loo qabo isu soo celinta dadka Soomaaliyeed iyo niyad wanaag ku aadan inuu maalin uun arki doono Soomaaliya oo mid ah oo la jaan qaadaysa bulshada caalamka inteeda kale. Axmed Deere MCTV Dadaab.